Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga ah. Maanta waxaynu dooneynaa inaynu halkan kusoo gudbinaa ninka barta bulshada trending ka ahaa isbuucyadii ugu dambeeyay. Waa Xalliye mise Cabdisamed Xalliye. Waxa uu horey u ahaan jiray mid ka tirsan wariyeyaasha RTN TV ee ka howlgasha magaalada caasimadda Kenya ee Nairobi. Kadib waxa uu u gudbay qurbaha. Ugu dambeyn, waxa uu ku soo laabtay magaaladii uu horey wariyaha uga ahaan jiray ee Nairobi. Halkaasi waxa uu ka bilaabay howlgal dhinaca TikTok ah oo uu ku doonayo in uu ka dhaadhiciyo ragga Soomaaliyeed in dumarka ay lacagta walaaltinimada ama xiriirka ka dhexeeya ay u siiyaan inay tahay arrinkaasi arrin xun oo uuba ku tilmaamay daanyeernimo. Bal ila daawa muuqaalkan uu ku canaananayo. iyadoo dirac karkaran aabaheedu uu gaday baan adigu iPhone u gadaysaa. daanyeer adigoo kaslaan kulaha cuntada iska kala yari u sheeg haddaad aragto iyadoo naxday u sheeg jiimka in looga baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan. magacaygu waa Xalliye magacayga si fiican u gaadi baraad. Xalliye, sida aad maqasheen, waxa uu sheegay in ragga lacagta siiya dumarka ay yihiin daanyeernimo, uuna ogoleen in naag dumar ah ay naaxdo. Haddii ay wax yar naaxdana waxa uu sheegay in si degdeg ah ay u tagto jiimka. Balse Sharma Boy ayaa Xalliye ugu soo jawaabay heestan. Bal ila daawo. waxbarasho waxa naga dhaxaysa wada dhalasho istel waa digu disha dhar xirasho anaa ogol baby jeebka baarasho Xalliye xawaasho hadduu raba hadda xawaasho OGEbeats.com kuxumee saaxiib sawir mar kale saana hey ama seeraan Sharma Boy, sida aad maqasheen, waxa uu ka dhawaajiyay in uu ogol yahay raallina uu ka yahay. Ayuu fikirkiisa ku cadeeyay in jeebka la baarto oo ay xalaal tahay arrinkaasi oo uusan la fikir ahayn. Master Xalliye ayaa waxa uu samaystay hashtag u gaar ah. Hashtag-gaasi oo uu ugu magac daray daanyeerka dil, oo ujeedkiisu ay tahay in gabadha Soomaaliyeed ee qofka walaalkeeda lacagta $1 uu dirayo ay shaafta ahaanta u soo doonatay in uu doonayo in laga jaro. Xalliye dhowaan waxaa ku dhacday in ay gabdho ku dhex dileen magaaladan Islii ee suuqa Soomaalida ee caasimadda Kenya ee Nairobi. Bal ila daawo muuqaalkan uu samaystay. barnaamijka share garay follow samay like samay. magacaygu waa Xalliye magacu waxay ugu caan Baaba Xalliye Baaba Xalliye laystayaasha ragga saacadeeya iyo daanyarada garoonada ku soo geliya naagaha friiga iyo kuwa dukaamada laga kiciyay ee wali maxalli ku adkaysanaya daanyarnimadooda. waxay ugu caan horumarka inaad ka xuntahay daanyarada iyo gorleyaasha. waxaa leenahay ku soo laabta wadada liibaanta, wadada horumarka, wadada kor isu qaadida. dib u soo laabta xanuunkas maxaa la dhihi jiray qaata. ku soo laabta laba xaniyoodlanimada. wadada saxda waa inaad laba xaniyood la noqotid. okay dib ha loogu soo laabto wadadaas bobsiyaw. intaas ayaynu kusoo koobaynaa asxaabta qaaliga ah muuqaalkeennii maanta. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. dhab ahaantii Xalliye iyo Sharma Boy ayaa isugu jawaabay hadalle aanan caadi ahayn. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin idinkana daawashada muuqaalka. waan idinkaga mahadnaqaynaa har iyo habeen sidaad noogu xirantihiin. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka oo gambaleelka furo.